waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan ku dhaqmo diinta Islaamka inaan ku dhaqmo diinta Islaamka dastuurka dalka Puntland iyo qawaaniintiisa dhowra dastuurka Puntland iyo qawaaniinta Puntland dhowra dalka iyo dadkiisa daacadnimo ugu adeego dalka iyo dadkiisa daacadnimo ugu adeego xilka la ii dhiibay daacadnimo ugu guto بسم الله الرحمن الرحيم runtii marka ugu horeysa gudoomiyaha maxkamadda sare xeer ilaaliyaha garyaqaanka agaasimaha iyo madaxda kale ee madaxtooyada iyo dhammaan xubnaha guddiga ku-meel gaarka ah ee maanta halka jooga ee toddobada ah waad salaamantihiin sharaf weyn bay ii tahay maanta in aan goobjoog ka ahaado dhaartiina waxay tusaale u tahay sida dowladda Puntland ay uga go-an tahay in dalka marxalad doorasho uu galo ballanqaadkeena ka mid ahayd iyadoo howlo aada u fara badan ay dalka yaalaan haddana waqti aada u badan waxaan ku bixinay sidii guddigan uu u dhismi lahaa waxaan sidoo kale marka ugu horeysa ka mahad celinayaa guddoonka baarlamaanka sida dastuurka uu qabay iyaga oo wadatashi sameeyey inay soo gudbiyaan xubnaha uu ogolaaday dastuurka inay soo magacaan oo afarta ah sidoo kaleeto madaxtooyada la tashi badan oo dhaafsiisan cid walba oo waxgarad ah oo reer Puntland ah annagoo eegeynay marxaladan cusub dadka ku habboon xeerinaynana habka guddigani uu shaqayn karo la tashiga waqti badan buu naga qaatay runtii ilaahay baan uga mahad celinaynaa taladaas kadib in uu go-aankii uu idinka noqday dabcan dadaal baa annagana saaran laakiin qof walba waxa uu qabanayo waa wax qoran intan inaad ka mid noqotaan annagu sabab baa noolaga dhigay ilaahay baa inii gartay waa xil weyn maantana ilaahay hortiisaad ku dhaarateen oo dee inaad mas-uuliyaddaas qaadaan waa mas-uuliyad aad dadkiina u qaadeen xukuumad umaydan qaadin dad gaar umaydan qaadin weliba waa guddi loogu talagalay inuu ka madax banaanaado hay-adaha dowladda oo uu si dhab ah dadkan u gaarsiiyo maxaa yeelay waa wixii dadka ka dhexeynaya baad maamuleysaan waxaan rajaynayaa inaad shaqadiina si wanaagsan hufan u gudataan daacadnimo ku jirto sidaad ku dhaarateen hadafku inaga leexan ummadda dhexdhexaad u noqotaan wax ay ku qanacda aada u qabataan waana rajaynayaa dadka xubnaha ka ah guddigan ka fiirsasho badan in ay yihiin dad xambaari kara mas-uuliyaddaas waana ku kalsoonahay dhinac walba dhinac bulshada iyo aqoontii u leeyihiin dhinac siyaasadda iyo bulshada say ugu yaqaanaan iyo dhinac sumcadda iyo aqoonta dadku u leeyahay oo ay u soo joogsanayaan intaba waa ka fiirinaynay runtii dad intaasba kulansaday ayaad isugu jirtaan waa dhici kartaa qofba dhinac inuu uu ku habboon yahay laakiin guddi ahaan dad isu dheelitiran baan dareensannahay deegaanada Puntland oo dhanna matali kara inay mashruucan doorashada ay si wanaagsan ugu qanciyaan waad ogtihiin 21 sano ee Puntland ay dhisnayd axad qalameedkii ugu horeeyay ee la qoray ayaa ahaa in doorasho la gaarsiiyo dimuqraadi ah duruufo adag oo runtii u masaamix waayo badan baa soo maray maanta waxaan rajaynayaa duruufaha imaan doona ani ka warrami maayo caalam qeyb ma aha laakiin waxa aan caddaynayaa duruufo siyaasadeed oo dowladda ka yimid inaan caqabad u noqon doonin doorashada wixii kaleeto idinkaa u joogi doona waxaan kaloo ku kalsoonahay maanta iyo shalay inay kala duwantaho dadku maanta u bisil yahay nidaamka dimuqraadiga waa dhici kartaa marar horoo lasoo maray inay dadka ruuxadiisa aragtiyo kala duwan ka qabeen laakiin doorashooyinkii badnaa ee lasoo gelgelayay iyo sida dadku isugu naceen habka xulidda waxaad moodaa dadku inay kalsooni ku qabaan inay ku baxaan habka waxaana daliil u ah xubnihii u dameeyay baarlamaanka qaybo qabaa'ilka ka mid ah doorashay sameeyeen intii uu hal qof qori lahaa oo aad arkayseen dad badan reero badan ba intay selection dad sameeyeen doorasho sameeyey waxay taas daliil u ahayd inuu nin walba jecel yahay in maaragtay meel fagaara lagu kala baxo
waan ii rajaynayaa guul iyo howlihiin inaad guda gashaan dabcan dowladdu dowrkeeda waxaa weeye facilitation wixii garab inaga siinayso dhinac maamul iyo dhaqaale iyo wixii dowladda ku soo aaday diyaar baan ila nahay idinkuna waxaan laga rabaa shaqo hufan oo waqtiyeysan oo aan rajaynayno sida ugu dhaqsiyaha badan qorshihiina markaad degsataan in doorashooyinka dowladaha hoose sida ugu dhaqsaha badan ee suuragalka ah markaad tashataan oo loo qaban karo inaad uga shaqaysaan xukuumad ahaan iyo shaksi ahaan way iga go-an tahay in doorasho la galo haddaan amar kale uusan dhicin waan dareemi karaa caqabado badan baa inaga hor imaan doona dadka oon u bislayn habka dowladnimadu u shaqaynayso nidaamka muddada dheer lagu soo socday oo wax qaybsiga qabiilka oo saameyntiisa iska leh dadka oo runtii marxalad aan munaasab ahayn oo kicin siyaasadeed la geliyo oo wax wada doon ah caqabadaha inay wajihi doonay ka mid tahay waxyaabahaas laakiin waxaa la rabaa inaad kartideeda u yeelataan dadkuna ay helaan meel aan laysku ceelin oo bal mar nidaamka xisbiyada badan inay arkaan inay muhiim tahay oo ay dadku dareenkaas qaadaan dhalinyaro fara badan bay puntland leedahay oo xamaasad badan ku jirto oo jecel inay dowladnimada practice gareeyaan haddii odayaal ay hortaagnaayeen inaad fursad siisaan oo caqabada doorashadu ay helaanna waan rajaynaynaa dadka reer puntland iyo dadka soomaaliyeedba dalkaanay leeyihin marka qof rabo inuu shaqeeyo inuu fursad u waayo dadkiisa u shaqeeyo isaga oo lagu leexinayo reerkaaga xagga jira ama reerkaagu ma leh runtii dalkana dan uma aha dadkiisa iyo wadajirkiisana dan uma aha marka insha allah waxba hadal kusii dheeraan mayno dardaarankeena waxa weeye hawshan ila igmaday inaad sida aad ugu dhaarateen u filisaan oo daacadnimo ah hagar la-aan ah mas-uuliyad ah wixii annaga nala gudboonna diyaar baan idin nahay waad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu